السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها السوماليلاند waxaan ka codsanayaa anigoo gabar islaama waxaan ka codsanayaa ninka miskiin qoodiyaha Cabdimaalig Muuse Coldoon oo dadan yar baan nahay oo baahnaa oo guryahoodaba ku hoos waqtiilaa oo uu noo soo galay waa baahidii maalintii ay naga hadhay oo waa miskiin qoodiya ninkaasi dalka Soomaaliland u dhashay ninka la sii daayo baan leenahay madaxweynaha iyaga sharafta mudan saasan ka codsanayna saasan ka codsanayna inoo siida ninka oo siida oo dalka u siida oo dadka u siida ninka miskiin quudiya masaakiinta ay idin soo eegaysay dawladda Soomaaliland xukuumadda waxaan ka codsanaynaa inay ninka siidayaan oo ay codsiga iyaga aqbalaan madaxweynaha waan u ducaynaynaa Allah barakeeyo isaga iyo qoyskiisaba waxaan ka codsanayaa inuu sii daayo Cabdimaalig Muuse Coldoon saasan ka codsanayaa waa ninka miskiin qoodiyaha waa nin aad u fiican ninka sii daayo madaxweynaha saasan ka codsanayna anigu waxaan ahay gabar miskiin oo dan yaraan waxba haysan caruurtayda anigoo aan dab u shidi jirin waqtiyada qaar aan uba shidi jirin daba hadii ay markii iga dhintaan ay u ahaan lahayd dhimashadoodaas ay ahaan lahayd baahi iyo nafaqa darro ay ahaan lahayd oo aan daba shidan uu soo galay aan hadeerna ilaa maalintii soo galay dabka u shita caruurta yar dad iga sii darnaana ay jiraan oo uu galay ninkaasi oo uu noqday shimbir inay ninkaasi daayaan ninka miskiin caawiyaha xukuumadda saasan ka codsanayna waxa weeyaan ilaahay waa subxaanahu wa tacaala de wixii aanu anagu u baahannahay aanu jecelahay ayaan dawladda weydiisanaynaa waxaanu weydiisanaynaa haddii aanu nahay dad wadaniya haddii aanu nahay dad waayeel haddii aanu nahay dad xaalkooda un isbarakaysay oo ilaahay og yahay haddii aanu nahay dad nimcaysan haddii aanu dad badan nahay oo aanan dad yar ahayn haddii uu maxay haytay kaalmaha uu noo kaalmeeyay ilaah baa kaalmeeyay Cabdimaalig Muuse Coldoon waxaan oo la xiray oo dambi hadii uu galay dawladda ka galay haduu shicib ka galayba uu xiran yahay oo wuxuu qofku haduu dambi galo la xiro oo aan lahayn sidee loo xiray aan lahayn waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland waxaan weydiisanaynaa Axmed Maxamed Siiraayo ilaahay khayr iyo xasanaad siiyo Cabdimaalig Muuse Coldoon inuu cafiyo oo noo sii daayo waxaan tabaynaa lacagtii baan tabaynaayo maxay haytay aragiisi baan tabaynaayo maxay tahay hawlihii buu lacagtu noo hayay oo xisaabihii wuxuu noo hayay baan weynay dadkii wax la siiyo waa lama hayo way xiran yihiin maxay haytay wuxuu na soo mariyay guriyo noo dhisay oo caalamku nagu sii daayo de guriyo noo dhisay guriyo hadii noo dhisana wali alankan maxay haytay waan doonaynaa de inuu noo yimaado aanu saragno meel aan u raacnay meel aan ka eegno toona waan weynay way dad ilba xamiina dad badwaanaan markii hore ahayn aanu ahaane waxaanu idinka codsanaynaa dawladda Soomaaliland in loo sii daayo idinkoo raaliya idinkoo mahadsan shicib iyo dadweynaba ninkii dhibaato maxay haytay dad u geystay oo ka qabo noo sii daayo lixdan jir baanahay way aragtaan halay sii daayo anigoo ka mid ah dhalinyaradan reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan ka codsanaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliland inay xorriyadiisa u soo celiyaan oo ay cafis u fidiyaan samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ku xidhan magaalada Hargeysa Cabdimaalig saanu anagu koogna waxa nin lagu yaqaan wanaag iyo inuu dadka taageero ay jilicsan
ma garanaysaa markaa sidaa darteed baan uga codsaynaa jamhuuriyadda somalilan ma garanaysaa anagoo ka mid ah dhallinyaradii reer somalilan inay u fidiyaan cafis waxaana insha allahu tacaala rajaynaynaa inay aqbali doonaan dalabaadka ka imanaya dhallinyarada reer somalilan. عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadlaynaa gobolka Togdheer waxaan u hadlaynaa Cabdimaalig Muuse Coldoon ninkaas oo ah nin samafalaa dawladuna ay haysato dambi buu leeyahay iyo dambi ma laha midna ma oranayno anagu laakiin waxaan codsanaynaa oo dawladda sharafta leh karaamada leh aan weydiisanaynaa inay sii dayso Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ay cafi u fidiso taasoo aan ku sababaynayno abaaraha ay haysto wadankeena abaartii labaad waxa noqotay Cabdimaalig oo xiran sababtu waxay tahay dad aan abaartu waxba ugu imaaneen ayuu Cabdimaalig uu samafali jiray wuxuu ahaa nin samafalaa wuxuu ahaa nin dadku jecel yahay hadduu dambi leeyahay hadduuna dambi lahaynba waxaan ka codsanaynaa dawladda inay sii dayso madax meel ka sarreeya la taabtaana ma jirto madaxweynaha aan ka codsanaynaa inuu sii daayo Cabdimaalig oo uu cafi u fidiyo. Cabdimaalig annagoo ah maatidii uu gargaari jiray annagoo aan meel tegin annagoon xafiis tegin ayuu noogu iman jiray guryahayaga wuuna gargaari jiray wuuna siin jiray nin ilaahay iyo rasuul bay yaqaana weeyaan waanu towno maanaan ogaan waxaanu doonaynaa ka codsanaynaa dawladda iyo dadka sharafta leh iyo diinta iyo cuqaashaba waxaanu ka codsanaynaa in naloo soo daayo waanu tabnay wuuna siinayey wuuna gargaarayey maatidii baanu hayn annagoo saa waran dusheeda nagu sawira nagu siinay nin daacadana wuu ahaa marka waxaanu doonaynaa dawladda cuqaasha madaxweynaha maalkan maanta dadka sharafta leh diinta inaad noo soo daysaan baanu doonaynaa oo aan idinka codsanay.